gudoomiyaha gobolka xaaladiisa hadda waa qaliinkii kasoo baxay wuxuu ku jiraa ICU ku jiraa qaliin dhowr saacadood qaata galay waxay ka gaareen caloosha iyo madaxa oo dhowr firda ka galeen waxay dhakhaatiirta hadda noo xaqiijiyeen inuu socsan yahay dhowr saacadood kadibna xaaladiisa ay soo romaan doonto. Tirada hadda aan xaqiijinay waa 3 gudoomiye degmo iyo 3 agaasimo waaxeed oo ka tirsan maamulka gobolka iyo la taliye arrimaha sharciga ee u qaabilsan maamulka gobolka. 7 qofood ayaan hadda xaqiijinay inay noqotahay. Gudoomiyaha gobolka xaaladiisa hadda waa qaliinkii kasoo baxay wuxuu ku jiraa ICU ku jiraa qaliin dhowr saacadood qaata galay waxay ka gaareen caloosha iyo madaxa oo dhowr firda ka galeen waxay dhakhaatiirta hadda noo xaqiijiyeen inuu socsan yahay dhowr saacadood kadibna xaaladiisa ay soo romaan doonto. Tirada hadda aan xaqiijinay waa 3 gudoomiye degmo iyo 3 agaasimo waaxeed oo ka tirsan maamulka gobolka iyo la taliye arrimaha sharciga ee u qaabilsan maamulka gobolka. 7 qofood ayaan hadda xaqiijinay inay noqotahay. Gudoomiyaha gobolka xaaladiisa hadda waa qaliinkii kasoo baxay wuxuu ku jiraa ICU ku jiraa qaliin dhowr saacadood qaata galay waxay ka gaareen caloosha iyo madaxa oo dhowr firda ka galeen waxay dhakhaatiirta hadda noo xaqiijiyeen inuu socsan yahay dhowr saacadood kadibna xaaladiisa ay soo romaan doonto. Tirada hadda aan xaqiijinay waa 3 gudoomiye degmo iyo 3 agaasimo waaxeed oo ka tirsan maamulka gobolka iyo la taliye arrimaha sharciga ee u qaabilsan